بسم الله الرحمن الرحيم ومان ميكروفونكم ما قبسانين إن هذا البدن الدنيا رهضة وحن ميكروفونك وصف ولينا ندي كسر دوية حرمت دقن كيه هرجيسة حرمت دقن كيه هرجيسة مرة البوح حيوت هاجن تهاي وعي قلنت بالشدة برارشنت بالشدة يواجبات كي نصارن أي نجا صارن هذين نقطة هويو هذين نقطة عيد كله هذين نقطة والدين تين هذين نقطة قرنكا هذين نقطة بالشدة إنه كحيران نهاية دين عوال بالله مسؤولية دين نجا صارن إن أمدن أي درنسيسو sidoo kale ay noqoto platform lagu wada hadlo oo lagu wada sheekaysto caawa habeenka ka sii dambeeya habeen kale ka dambeeya haddaynu ka hadallo hooyo waajibkeeda ma soo koobi karno sidoo kale uma malaynayo kelmad iyo laba kelmadood iyo saddex kelmadood iyo hadiyad yar oo aynu halkan ka siina inaynu ku soo koobi karno waajibaadka iyo mas'uuliyadda inaga saaran hooyo lagama yaabo habeen keliya oo aynu khaydkeeda ka siibanay naxadinta ay ka naxday inay soo celin karto adiga oo xambaarsan macnaha sanawaad waxaan aad u bogaadinayaa walaalkay Cali Kaamil oo barnaamijkan noola yimi runtiina barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamijyada ugu muhiimsan ee ay xaruntu ay martigeliso runtii aad baan Cali ugu mahadnaqayaa dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada xarunta dhaqanka ee Hargeysa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan idinku soo dhaweynaya xarunta dhaqanka caawa farxaddeena ma qiyaasi kartaan wajiyadan quruxda badan waqtigooda qaaliga inoo huray ee madashan isugu yimid iyo kuwa inaga maqanba intaba waxaan leenahay welcome mar kale iyo barnaamijkii hiil hooyo barnaamijkan hiil hooyo wuxuu isugu jiraa qayb aynu hadiyado ku siin doono hooyooyinka iyo qayb kale oo caadi ah labadaba wuu ka kooban yahay oo si gaar ahna waxaynu ugu maamuusi doonaa hooyo macaan barnaamijkan wuxuu socday muddo in badan ah ilaa ay ku dhawaad muddo hal bil ah ayaan barnaamijkan u diyaarinaynay oo maalin walba meel buu nala taagnaa alxamdulillaah laakiin caawa wuxuu noqday barnaamij inuu suurto galo waxayna noo suurto geliyay xarunta dhaqanka ee Hargeysa aad bay u mahadsanyihiin sacabka anigu wax badan ma hayo waxaan hayaa maanso aan ugu talagalay hooyooyinka oo dhan inaan siiyo caawo marka waa every mother maansadaasi waxay ka hadlaysaa dareen gaara fariin gaara ayay bixinaysaa waxay la hadlaysaa inta wax haysata ee aanan haddana ku baraarugsanayn hooyada ama wax qabadkooda ka gaabiyey ayay si toos ula hadlaysaa waxaan rajaynayaa maansadaasi inaad dhigaha u furi doontaan welcome maansada waxaa la yiraahdaa duca qabe maansadan waxaa la yiraahdaa duca qabe hooyadu inta badan waxaa laga helaa kaliya duco waxaa wax deeriya ama habaarka uu ka yimaadaa waa aabbaha waxaad moodaa markiiba hadduu arko wax uu fahmi waayo markiiba inuu kugu gama bahal habaar ah laakiin hooyadu sidaas maaha waa hooyadu way beer dibacsan tahay waxay jeceshahay inankeedu inuu wax qof wanaagsan noqdo hooyo kasta waxaa qanciya in la xasuusnaado in la daryeelo teeda kale barnaamijkan si gaar ah wuxuu dhiirigelinayaa saddex arrin wuxuu dhiirigelinayaa koow hooyada la ilaabay inay dhalinyartu ku baraarugsanaadaan waa fursad qaali ah ay maanta haystaan inay ka faa'iideystaan labo hooyada dhimatayna waxaa idinka doonayaa inaad xasuusataan oo aad xiriirisaan waxna u sadaqaysaan taasina waa fikir kale oo aad u wanaagsan qodobka saddexaad waxa weeye hooyada dhibaataysan ee dhimirka laga hayo iyana si gaar ah in loo eego la daryeelo hooyadu markay wax ka sugaysaa waa inaga oo kaliya iyo inta inaga maqan qof kasta wuxuu awoodi karaa hal hooyo inuu xil iska saaro hooyada jaarkaad awoodi kartaa inaad xil iska saartaan marka anagu cidna kuma tiirsanin inaga is abaabulnay horta marka hore waxaan ilaawsanahay mahadnaq waxaan si gaar u mahadnaqayaa inta barnaamijkan qaybta ka ah inta barnaamijkan ka soo qayb qaadato ay ugu horeeyaan urur la yiraahdo Samakaal shirkadihii gacanta naga siiyay asxaabtii kale ee inta nala ogeyd iyagu halkan waxaan ugu dirayaa mahad aad u ballaaran oo ma ilaabi karnaan leenahay haddaba maansadii baan bilaabayaa dhagaha si fiican igu fura
waxaan ahay dareen baahiye u hadla hooyo darayaysan ma ihi keligii dirac hooyadii hatay adba waxaa tahay ducaqaba hooyo daryeela isku siibay noo damaqdaa duruufta waalidkeenna haddaan haysto dollar iyo dirham iminkaan u soo daabuli lahaa maraakiib buuxda daqiiqa maxaad tidhaahdeen sacabka meeyi haddaan shalay ku dayacna hooyo maanta kuugu dari mayno noloshaa daruufaysan kugu daawan mayno dub dambe u dhici mayso dabcan quruxdaada dan weyn bay noogu jirtaa gaarigaba waa la dayax tiraa waa kuwan haldooradaada dhagaha kuu daloolan way maqlayaan dabuubtaada dadku waa dadkaagii u ducee keliya laab ka sii daa caloosha hooyo hooyo kuwan ku dayacay ay ku ilaabay hooyo caloosha ka sii daa u ducee baan leenahay oo hooyadu marnaba ma laga yaabo urkeeda kuma jira wax habaar ah aabbaha ayaa laga yaabaa inuu wax deeriyo laakiin hooyadu sidaa ma ahan ka sii soco siday kuu darajaysay diintayna suuban dadka kaaga socday u daahirisay xaqaaga 3 jeer dalacaadaada aayadaha daliilka sugan nafluhu ma dafiri karo wuu dambaabay ruuxii ifka kugu dayacay adoo daal ka soo maray habeen dumay fool daran war maxaad tiraadeen okay dunidaad ka tahay hooyo qoyskeenaad u tahay duni waxaad tahay dictorayse adna uma baahni degree maama dibloomadi iyo baajkaba dushaada laga bartaa adigaa ka daran Badar University صعبك مفتي دروس لقد طلعت كاد وطاي الشيخ ديرر هل أبور كده يشاله هدراوي معلم ددال هول كارل نور الدين وريد القاط بدن هرري مداله شيكو عن وجهي دوق مقالة إن الموجي قريقان دلتيرا بطون هو كان دونيدا قد الشيء إلهان ددالكو قفة مو فارح ددالكو قفة مو فارح ورشد آدمي بعد السجل جد ضرب آدمي تمرسي يصوم باور دردر عيل بترول كويا الهاز حوالد نوضر وول رمد صعبك وحبة دوليدا أوجي دلالك ديقضى بحشا معدن دهن ميركوري دولي ديال دايما نلدري سهويو وتبيعي جعيل كاغو دفعي كاغو واردلن دريمها شنطا كوغل جيركا كود بحشا كامار من دقيقة قرى مدما نور كاغا هويو ميل ششو كدارين يحي دادكاد وطاهي تاليسوب ما شاء الله دبا كاغا قلبي قاد كتاهي دهبشيل بانك إيش على ضمير كاغا دير كات كتاي أومار يا سلام ضدني ماذا هذا ديقرات كتاي بحصني مدوغو ودا قبن مدو يدوحدات كتاي إنا أو سعيد لو قد يرسي هوي ضعدا هذا سيدي آدم بردو أوف عليك نصب ظاهرة روحات كتاي إنا أفدين لي وذهب موقال كاغا دوش سرات كتاي سيمودي ودبت هذا الضلحيس كوبا كمد على الديالو ايرلاينز الله هو يكدا نعبكم مدغو حاسدكم مدريو انت حنت كاديرن انت سنكوغو دودي وقتكم مدبرو نصيبك كو مدرنادو ادونك كو دناني فقرك كو مديديو دين لغو ما قبسدو كما ديلان اباروه دعوه لغو ما اوغو افك لبدا دارود كود كاي فردوسو بقرتويه ان دومين برلمان دستوريه بش علن دكسون له مدحوينه داعده دلكاد u tahay Muuse Biixi وافضل الصلاة وأزكى السلام على نبينا سيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرم علينا يا أن وحكلي أن أرنكر إلهي خلقك أمي دنيدا وكم بديسيهن
waxa weeye maamuuska iyo milgaha iyo sharafka ay leedahay hooyo xagga luqooyinka markaynu ka eegno hooyo yani waa hoy waa hooya waa halkii lagu nagaanayay waa halkii lagu barbaarayay waa halkii ma garanaysaa dee qofka raxmaddeeda waaya ama kaskaaskeeda iyo korinteeda yani wax badan ay ka dhiman yihiin diinteenna wanaagsan ee suuban oo uga horreysay cid wal oo ka fekertay daryeelka iyo maamuuska jinsiga dhadiga ayay u tahay marag waan xasuustaa qolyo French iyo caddaan ah oo aanu maalin meel isugu nimi oo waayadan dambe waa tan sidii Soviet Union iyo shiicadii mabda'a loo jiray ay u rakiigeen shiishka waxa la saaray marka la eego xagga galbeedka islaamka iyo muslimiinta iyo magaranaysa olole hor leh oo oodihiisa wata marka meelaha had iyo jeer la damco in laga soo galana waxaa ka mid ah sinaanta ragga iyo dumarka marka waxaan ku doodayaa anigu dee waa la siman yahay ilaahay waa loo siman yahay waajibaadka waa loo siman yahay lama odhan dumarka idinku nus baa tukanaysaanoo salaadaha ragguna 5 bay tukanayaan idinkuna 2 salaadood iyo nus baa tukanaysaan lama odhan waajibka waa loo siman yahay ajarkana waa loo siman yahay in kaloo ay dheer yihiinna way jirtaa baarin oo idinku marka laga hadlayo Europe iyo North America haddaad tihiin had iyo jeer dhadig ama dumar waxaad u taqaanin midun ruux dumarahoo aad wada joogtaan si kale wastaba ku wada jooga bas laakiin ma taqaanin hooyo xaq ay leedahay hooyo xaggaad digtaan waynu sugnahay baa la dhiyaa Europe iyo wixii la xidhiidha iyo dhaqamada ka farcamay qof ama dad ama reer hooyo meel ku ogi ma jiro annagana waxaana la yidhi 3 goor bay ka xaq badan tahay yani cibaadada iyo qiritaanka ilaahay rabbinimo loo qirayo waxaa ku xiga labada waalid anishkur lii wa liwaalidayka ilaahay wuxuu yidhi ii mahadnaq aniga iyo labadaada waalid uu isku lamaanayay labadii waalid baa markaa dabeetana nabi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi inoo faafeenaya uu leeyahay يعني إنك أيمي يديان أسمى فلا رسول الله ويدي أمك هو يدا ثم من ديدنا هو يدا أمك دبا ديدنا مرسد حد أمك صدح قور وحديث دعانه هاي نكود دريكشنه هل كاس على جرنا يا مركز هو يوم مركز وهل كيلو هو يعني وهو يجي ونكسنا يدي هنا يلا قصو برباري عربينا ويقولوا ده هي يا والد لا يبدو ولا لكن أصل هو مركز لسيف فسر اللغة العربية أما يا وهل كلاقو تبان يلو تشيدو قف كستان مركز أي يعني ما قرنا يسا رنتكو أتكات يرئي يوين هل هو عرنا وهوي واللوجي dad yani awoyaala oo iyagu leh oo haddana marka ay rurun gaadho qofka kaliya wax xasuusanayo ama uu tabayo ama halka ay ka xigto uu nafta kula eeranaya ay tahay hooy marka waxa weeyaan ma gudi karo ilaahay subxaanahu wa ta'aala hayna waafajiyo xaqa waalidiinta inaynu garanno xaqa hooyo inaynu sii garanno إن إنه يعني إنتينا هو ينكود إنه ليهين يعني هو كنز رباني خزنة رباني أيات هيست هايو إدي نول دعاء ده وسما فلك ده كجفرحين ده أنت صادن وحويا وحان لجاري كرين يعني التلمانسن كرين
oo ilaahay uun abaalkeeda gudi karoo hayo ayaa laga helayaa marka hooyo ilaahay ha gallado hooyoo dhan dembigeeda ha dhaafo waa nuur alcayn ilaahay maaragtay intay u nool yihiinna ilaahay haw maaragtay ziyaadiyo dardaarankuna waxa weeye duco kala hadha duco kala hadha waxa kaleed qaban kartaa waxa weeye haddii aad karayso qof walba rag iyo hablaba gabdhaba yacni inta ay nohoshayna in waxay kaa doonaysaa ma jirto waxa weeye erey wanaagsan iyo yacni garab raaricin واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قرب نحريسات ورارعي بقى إلهي ومر والبعض نحريستس يا لكن ما كانت توقف يبغى نتكور نطاتر هذا يهوي محد ما أنت كنا شيء هوي بل يورن هوي وكالة دوي مركا أن سيدا نسكوب نهي ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعائي بوري كل دعيسته ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين مر والبا إن دم بداف مري نولي هين يهديك هريا ملو ويديو هوينا وهويو وهويا وهوي وهلكي لغو تبانيي لغو إيرانيي إلهي قلد دوا naxariis haddii ay inaga horreeyeen intay dee hooyooyinkood ka horreeyeen godkoodu waa janno galladoodna waa naxariis ayaynu leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu هقي عيل بي قبتا هقي عيل بي قبتا هويا ذا أفريكا كنال هويا ذا أوروبا كدارن هويا ذا إيشيا أنغامين هويا ذا USA بلك هويا ذا أستراليا أدون هالنضبان لها أدون هالنضبان لها هدل دوبيكو ماليه هانتي كالكو ما ورورو إسناقا عنكو ما هايو هلوي مصايرا هبنا ذقار إن بدن هرددويك مصور دعضو أنوم باهو يدا وحتى هينا هبلا هركيغا لغو غما ربطيدا لغو هضما جندا هستيدا تل هنغوري ميانو كاغا جيرين waa mid ay naga mudan tahay diinta oo lagu sheegay dhaqankeena oo lagu sheegay hooyadu mar walba waa mudnaanta koowaad waxaana leeyahay bar hooyada ay dhammaanteen wada ilaalino aqoonyahan arbela jooga waan soo dhaweynayaa idinkuna qaybta dambe barnaamijka ayaan siin doonaa laakiin aqoonyahanka waxaan jecelahay bar inaan inooga warramo doorka hooyadu iyo arrimaha bulshada dhinacaas inooga sheekeeyo gaar ahaan bar gabadha la qaba ee iyo weliba sodohdii iyo xaggaas uu nooga warramo aqoon-yahan ku soo dhawow hadal kusii dheeraan maayo kolley adiga xaggaa iga fara dhuudhuuban oo aan kaaga tegayaa wixii dhexdana waan iskaga iman doonaa soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما runtii way mahadsan yihiin marti sharafta qiimaha badan xildhibaankii hore ee dalmar ay hogaaminayaan ee la fadhiya iyo runtii marti sharafka hooyooyinka dhalinyarta iyo tiimkan quruxda badan ee soo qaban qaabiyay barnaamijkan hooyada
hooyada markaynu ka hadlayno muhiimaddeeda wayn dee warkeedu waa cad yahay oo diinteennu halkay saartay hooyada waynu garanaynaa oo xaqa koowaad iyo ka labaad iyo ka saddexaadba inay hooyadu leedahay waynu ognahay waxaynu ognahay nolosha guusheeda inaad nolosha aad ku guulaysato inay kow ka tahay inaad hooyada aada hagaajiso xuquuqda dumarka iyo hooyooyinkana islaamku halkuu ka istaagay iyadana waynu ognahay waan xasuustaa macallin maado noo dhigi jiray ayaa wuxuu yidhi annagoo ingiriiska joognaa oo wax baranayna oo markaa hablo caddaana iyo inama caddaana aan wax wada baranayno marka macallinka wax noo dhigay waa nin bakistaaniya ayaa wuxuu yidhi raggii inamadiiba waxay yidhaahdeen war qoladiinan islaamku dumarka meel xun baad dhigteen hablihiina way maqlayaan caddaankaa markaase waxaan ku yidhi haddii aad haysato dahab halkeed geynaysaa gurigaaga halkeed dhigaysaa suruuda dahab haddaan haysto dee waxa weeye gurigayga dhexdiisa kuma tuuraayee meel gaara qasnad gaara oo la ilaaliyey oo adag baan gelinaya waxaan ku yidhi buu yidhi haddaba anaga dumarku qasnadaasi noo yihiin guryahan ku ilaashanaa meel adag baanu gelinaa intaa markan iriba yidhi habliha caddaankaaba qosalita ku dhufteenba waxay idhaahdeen this is amazing arrintan waa arrin la yaab laba yacni islaamku halkuu ka istaagay dumarka inuu sidaa u sharfo iyagoo raggii caddaanka xaqiraya ayay yidhahdeen runtii waa waxaad u qiimo badan marka horta islaamku meel fiican buu dumarka joojiyey hooyadana meel aada u weyn buu joojiyey runtii laakiinse inta badan waxaa jirta oo su-aalo inta badan dhowaan bulshadeena dhex hordayay su-aalaha jira odhanaya gabadha sodohda iyo inan gabadha la qaba siday u wada noolaanayaan run ahaantii waa arrin dhinac markaad ka eegto ku xidhan ninka zawjka ama kan ragga iyo markasta kartidiisa iyo qaabku mashaakilka u xalliyo laakiinse cilmiga psychologyga marka laga sheekeynayo waxay yidhahdeen 6 qodob baa jira oo muhiim tahay hadduu rabo ninku inuu xaaskiisa iyo hooyadii inay si fiican u wada noolaadaan hadduu rabo oo heshiis ahaadaan oo noloshu macaanaato hadduu rabo 6 qodob waa iska hagaajiyaa qodobka koowaad waxa weyn bay yiraahdeen ninku markuu guursanayo gabadhu la sheekeysanayo la haasaawayo waa inuu uga sheekeeyaa hooyadii waa inuu u sheekeeyaa hooyadii iyo dabeecadaha leedahay iyo qaabka u dhaqantay waxay jeceshay waxay necab tahay waa inuu siiyaa furayaasha hooyadii qalbigeeda hooyadii gabadhan sida u furi lahayd ee qalbigeeda u furi lahayd furayaasha waa inuu siiyaa oo yiraahdo hooyaday dhaqanka noocaasa ayay rabtaa qaabka noocaasa wax loo fahansiiyaa qaabkaashay jeceshay oo marka horeba waxay yiraahdaan qofku hooyadii waa inuu xaaskiisa ka soo dhaadhiciyaa oo iyadoo gabadhu fahansan ninkan ay guursatay hooyadii noocay tahay iyo dhaqankay rabto horta guriga waa inay timaada waa qodobka koowaad qodobka labaad waxa weeyaan bay yiraahdaan isna aadka u muhiimkii waa inuu isagu fahmaa mowqifkay kala taagayeen hooyadii iyo gabadhan maxay guursaday hooyadu waxay taagan tahay anuu inankaygi baa tahay anaa ku soo kariyey waqti baan ku soo geliyey waan kula soo rafaaday intaasoo waxba iga kaa soo baxay calooshaan kugu siiday adduunkan anaa ku keenay aniga ayaa iska kaalay hooyadu halkaasay taagan tahay gabadhu halkay taagan tahay waar anigu reerkaygii baan kaaga imi aabbayo hooyadee baan kaaga imi guri dugsoon hooye abbaanisaan kaaga adaan kula joodaa keligaa baan kuu noolay adaan halkan kuu fadhiyaa labada mowqif bay kala taagayeen markaa ninkii maxaa la rabaa labadan mowqif waa inuu fahmaa labadan qof qaaf caatifada ku jirto waa inuu fahmaa oo isaga laftigiisu xaaladan horta uu fahmaa taa maxaa ka dhalay qodob saddexaad oo muhiima qodobka saddexaad waxa weeyaan aadka muhiimkii hooyadii waxay u baahan tahay ammaan inay hesho وقف لبر أما سيدي هويدا كوهليسا كو هويدي مركي أنا جورسان قابكو أولاد متشري يا وناج أسميت شري يا تحقلت وسين شري يا احترامك يا وقتك يا لعبتي أنت بواي نصية سبت واحد توحى اللي رهذا هويدا وحى كان إن بدن أو كم إذا وحى كان إنا يحاسك كوك عضو يدا درين تاني إنا كي رأي سوكر سدا إسكال هيد وقبرك الإسكال عادتي ورلعق سوديرين aanu u iimanayn aanu soo booqanayn oon waqti siinayn hooyada waxay ku abuuraysaa ciriiri marka koob waxa la leeyahay hooyadii amaan waa in heshaayo inankii waa inuu dareensiyaa hooyadii wuxuu berigii hore siin jiray iyo qaabkii uu la dhaqmi jiray waxba inaanu ka bedelay lambar 2 waxay yiraahdaan hooyadii waqti waa inuu sameeyaa maalin kasta uu tago oo uu soo booqdo oo muxuu ahaay la sheekaysto waa inuu siiyaa lambar 3 waxay yiraahdaan hooyadii waa inuu yiraahdaa hooyo gabadhan adigu
ifahansiiyo muxuu ahay gabadhan ii soo dhaweeyo adigu ka qayb qaado gabadhan inayna noolaato hadday hooyadii qayb ka noqoto gabadhu inay guriga ku noolato ee hawshaa gasho dee hooyadii kama hor imanayso gabadha iyadoo keentay kama hor imanayso marka qodobka marka la helo ayaa isna wax muhiim haddaba qodob aad u muhiima waxaa jira muxuu ahay afraad baa jira oo waa maxay ninku gabadhiisa waa in uu sheegaa hooyadii wax alla wuxuu ugu talagalay waa inuu sheegaa mowqifkaas waa inuu caddaada hooyadii waqtigu gelinayo waqtigu u tagaayo lacagtuu siinaayo inaanay gorgortan gelayn oo hooyadii duruufaha la soo dabaalatay iyo sida u soo korisay iyo halkuu ka taaganya waa inuu caddaataa gabadha saana gabadhu uula imaanin isaga ha dhow yacni wax hooyadii dhib u keeni kara gabadhu markay ogtahay ninkan hooyadiina ku adagiyo meel ka taagan yahay oo xuquuqda ay ku leedahay u ixtiraamayo in badan way tixgelinaysaa qodobka halkaa kusoo xigaa waxa weeyaan waa haddii khilaaf imaado hooyada iyo muxuu ahaayey imaado muxuu ahaayey iyo inanta u imaado mowqifka laga rabo inuu istaago waxa weeyaan mowqifka la yidhaahdo dejinta iyo hawsha inuu dejiyo isagu inuunu markiiba daraf aanu markiiba ku bilaawin laakiinse isagu markuu khilaaf dhaco horta uu dejiyo labadoodaba raaligeliya uu dejiyo isdejiya yidhaahdo kadib mushkiladda xalliyo laakiinse markiiba isagoo hadduu cid dusha ka fuulo oo markiiba yidhaahdo khalaas waxay imanaysa gurigu halkaa inuu ku baabao ha dejiyo hawsha marka hore hooye ha raaligeliyo hooye isdeji xaaska isdeji ha yidhaahdo kadib hadhow mushkiladda ha xalliyo qodobka halkaa raacaya isna aadku muhiimka waxa weeyaan waa inuu hooyadii iyo zawjkii labaduba xuquuq bay leeyihin waa inuu xuquuqdooda xadkay leeyihin u kala sheega hooyada xuquuq badan bay leedahay waa inuu sheegaa isla gabadhanu soo guursadina xaq bay ku leedahay oo gurigan dee iyada ayaa uu keenay oo xuq bay ku leedahay iyadan waa inuu sheegaa marka qof kasta waa inuu xaqiisii uu la socdaayo islaamku weliba sida ugu sheegayuu la socodsiiyaa qodobka halka kusoo xiga waxa weeyaan markuu hooyadii la joogo ama uu xaaskiisii la joogo midna yaanu ka kale u sheegin wax dhaliila yacni gabadhiisa markuu la joogo hooyadii wax ka sheegi hooyadiiba qaladkaa samaysay ka marna yaanu samayn xaaskiisa markuu la joogana gabadhii hooyadii markuu la joogana xaaskiisa yaanu la caahay sababtoo taasi waxay keensanaysaa hooyadii inay gabadhii nacbaatay keensanaysaa ay nacdo oy markiiba ma garanaysaa halkaa dhibaata ay ka timaado waxaa kaloo iyada raftigeeda runtii aad u muhiima oo qodobada lafdhabarka laisugu soo dhaweeya ka mid a inuu gabadha ku qanciyo hooyadii horta inay la sheekaysato oo iyadu la fadhiisato guriga ku soo booqato markay ku soo booqato ay xataa kijada u gashay cuntada u kariso bale uu isku dayo lacag intuu isagu soo qaado inuu xaaska intuu u dhiibo hooyadii hadiyad uga dhigo oo gabadhu iyadoo ka dhigasana iyadu hadiyadda keentay inay gabadhii hooyadii u hadiyeyso tiro hooyo ciidda waxa kuu keenay waxan baan kuu keenay iyadoo lacagta isaga laftiisa ka soo qaatay isagana uu sii sheegtay hadday doonto taasi waxay keensanaysaa hooyadii qalbigeeda inuu soo dhowaado oo gabadhii ay jeclaato ay soo dhowayso oo gabadheedii ay ka dhigato iyadana runtii waa qodobada la yidhaahdo waa qodobada lafdhabarka lixda qodob baa waxaa la yidhahdo waa 6 qodob oo ninkii uu runtii ku hanan karo uu ku ilaashan karo gurigiisii sababtu waxay tahay burburka ugu badan ee maanta dhaca ee guryaha dumiya waxaa ka mid a marka laga tago qaybo kale waxaa ka mid a inanka hooyadii iyo muxuu inantu isfahmi waayo oo markaa ninkii ama uu la saftay hooyadii ama uu la saftay xaaskiisii taasi ay keento gurigii in lagu kala yaaco markaa suuqtii si gurigii loo ilaaliyo carruurtii loo ilaaliyo waxaanu u baahannahay inuu ninku qaab macanii uu fahmo cilmiyeysan horta dhaqankan uu fahmo oo markiiba seeflabood aanu noqono seeftan cid aanu saarine uu qaab labadii hooyadiina uu xaqeeda ku siinayo oonu marna ku dulmiyeyn sababtoo hooyadii isagaa iskale xaqiiqadu waa taas hooyadii inanka iyadaa iskale iyadaa soo korsatay iyadaa iskale bacdallahi markaa ha lahaatee dawa haddana waxaa la rabaa gabadha laftigeedana xuquuq bay leedahay xuquuqdeeda in la ilaaliyo oo markaas si fiican ay ku wada noolaan karaan oo guriga ku wada joogi karaan runtii la sameeyaa loo baahan yahay markaa waxaan runtii kusoo koobaya kelmadayda hooyadu waa muhiim waana meel adagna runtii waynaga taagan tahay diinta islaamka iyo dhaqankeena iyo intaba meel adag bay hooyadu ka taagan tahay cid oran karta hooyada muxuu ahay haddaad ii keento anigu ma aqbalayana arrinkaasi waxaan u arkaa in qaldan inuu yahay hooyadu inanka iyadaa iskale hooyadu inanta iyadaa iskale marka labadii hooye kasoo kala jooda inanta iyo inankaba labaduba waxay mudeen ixtiraam iyo in la soo dhaweeyo guriga ay imaadaan la ixtiraamo si fiican loola dhaqmo la dejiyo la habeeyo oo inantiina aanay oran hooyadayun ha la ii ixtiraamo taada ma ixtiraamayo inankana aan oraniga hooyadayun ixtiraamo taada ixtiraama taasi aanay dhicin labadii hooyo labadii aabbo
intiiba waa in guriga lagu ixtiraamaa lagu hagaajiyaa si fiican loola dhaqmaa caruurtu ay noqdaan caruurtoodii oo u siman ay noqdaan intaasaan kusoo koobay assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad aad buu mahadsan yahay ustaadku waxaan ila joogaa dhinacayga oo hadda nagu soo biiray doctor axmed ismaaciil oo isaguna doorka hooyada iyo caafimaadka inooga warrami doona barnaamijkan oo runtii barnaamij aad u qiimo badan waxaan uga mahad celinaynaa ustaad cali oo soo qabanqaabiyey waa barnaamijkii ugu horreeyeen odhan karaa guud ahaan afrikaba ama afka soomaaliga mid deegaanada lagaga hadlo lagu soo qabanqaabiyo oo hooyo lagu maamuusayo laguna weyneynayo waa sanadka 2022 door muhiima iyo baal dahaba ayaa uga gashay ustaadka barnaamijkan quruxda badan ee uu soo qabanqaabiyey waxaan odhan karaa barnaamijyo kii ugu fiicnaa ee hooyo lagu maamuuso run ahaantii weeyaan waxaan ku sii socon doonaa barnaamijkeena si aan waqtiga uga faa'iideyno qaybaha inoo hadhay waxaan ku soo dhaweynayaa axmed ismaaciil kadib ustaadka waan ku soo noqon doonaa iyo kelmadiihu ay odhan doonaan axmed ku soo dhawow barnaamijka iyo doorkaad kaga hadli doontay dhanka caafimaadka aad waad mahadsan tahay bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin dhammaantiinba inagoo ka bilaabana hooyooyinka sharafta leh ee wakhtigooda u soo huray inay nagala soo qayb qaataan barnaamijkaasi loogu hiilinayo hooyada qof kastana doorkiisa uu ka qaadanayo oo horeyn maamuuska koowaad waxaan siin doonaa hooyooyinka nagala soo qayb galay doorka labaad waxaan siin doonaa dhaqanka iyo madaxda kale ee nagala soo qayb gashay ustaadku ka mid yahay iyo muxuu ahaa madaxdeena kale ee iyaguna fadhiya ma kala qaadqaadi karna laakiin dhammaantiin baan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kolley doorka aniga ahaan laga keenay waxa weeyaan aniga magacayga waa doctor axmed ismaaciil xuseen waxaan ahay dhakhtar cudurada guud ee carruurta iyo dumarka saa awgeed waxaa maanta laygu yidhi anoo shaqo ku jira oo weliba safar ka soo galay ayaa aan shaqadii uga imiday markii la yidhi hooyaa loo hiilinaya taas waa arrin aad u qadiyada aad u weyn weeyaan marka la yidhi hooyo ayaa lagaga hadlayaa ayaan shaqadan iminka hayay oon custaalkan joogay aan uga imid iyada daraaddeed wayna mudan tahay hooyaduna waa shayga koowaad amba waa tiirka koowaad ay ummaddu ku dhisan tahay haddaynay hooyo jirin intaa oo soo qof oo ina hor fadhidaa may jiri lahayn marka anugu qodobkan qaadanaya waxa weeyaan inaan hooyada iyo caafimaadkeeda aan wax ka idhaahdo waxaa jirta hooyooyin fara badan oo aan war ka hayn dhibaatooyin caafimaad oo xilliga ay amba foosha soo gaadho amba umusha soo gaadho dhibaatooyin fara badan oo soo gaadha oo ayna war ka hayn baa jira marka hooyooyinku markay ii yimaadaan aan xaruntaan leeyahay caafimaadka ay ugu yimaadaan waa shayga koowaad ee priority-ga amba ahmiyadda siiyo hooyada si fiican u soo dhaweeyo weligay hooyo ii timiday qofka marka la akhriyo magaca qofka xanuunsanaya patientiska waxaa la yidhahdaa hebel laakiin weligay hooyo ii timiday magaceeda heblaayo kuman odhan waxaan mar kasta ku soo dhaweeyaa hooyo soo dhawow maxaad u baahan tahay taasina waxay muujinaysaa qiimaha ay hooyadu leedahay waayo hooyo ay soo korisay inta ay soo leekeysiisay waxbarashadeeda ka soo qayb qaadatay ilaa iminkana abaalkaan u hayaa waa hooyada mar kastana way garab taagan tahay iyadaanay odhan jirtay hore u soco hadaalin halkaan ka sii soco marka doorka hooyadu wax aad iyo aad loogu soo koobi karaya kelmadii laba midna ma aha marka kelmadeeda caafimaad baan ka odhanaya marka caafimaadka marka laga hadlayo kelmadda koowaad waxa weeyaan dumar fara badan baa xanuuno fara badan ka cabanaya xanuunada ugu badan ay ka cabanayaan waxaa ka mid ah in mararka qaar dhabarku xanuunayo kaado oo kale gubaso muxuu ahaa ay yeelanayso waqtiyo fara badan inay dhaqaaq kari weydo socon weydo markay ii yimaadaan waxaan kula taliyaa oon inagana inii sheegayaa oon doonaya inaan igula taliyo waddankeenna waxaa ku badan xanuunada infectioniska la yidhaahdo weliba khaasatan infectioniska ku dhaca meelaha kaadimareennada keliyaha iyo xubnaha taranka inta ugu faraha badan lee dumarka ii yimaadaa ee hooyooyinka iyo dumarka dhexaba waxay ka cabanayaan ugu faraha badan leh waxa weeyaan waa xanuunka inii sheegayo marka waxaan kula taliyaa oon u sheegaa in ay badsadaan waxa la yidhaha cabitaanka biyaha soomaalideenu waxyaabahay aadka ugu liitaan waxaa ka mid ah biyaha maba cabaanba markaan ku dhahdo biyaha caba waxay ugu dhahdaan koob amba sufur wax ka badan ma cabi karayo anna waxaan kula taliyaa aan u sheegaa in ay baranayaan oo ay maanta iyo beritoole ay ku celceliyaan waxyaabaha kale doonaya inaad ogaataan waxaa ka mid ah in xanuunada ku dhaca
ay ka soo gudbaan cuntada iyo biyaha wasakhaysan aan isticmaalano magaaladan hargeysa ku nool nahay waad aragteen biyo nadiif oo wanaagsan ma haystaan biyaha ugu badan in loo keeno booyadaha keena soomaalideenu aqoon uma laha in biyahan ay xanuun ka qaadaan tusaale yaro kooban baan ii sheegaya xanuunka typhoidka la yidhaahdo ee dadku ay madax xanuunka iyo margi xanuunka ay ka cabanayaan waxaa laga qaadaa haddaan inii sheego wax yaroo aad u simbala weeyaan keliya waxaa laga qaadaa biyaha iyo cuntooyinka wasakhaysan haddii biyahaasi maanta la keenayo marka xaafadda la keeno ila dantayna u qasbasee haddii la karkariyo oo la qaboojiyo oo la shaandheeyo oo la cabo xanuunadaas way naga yaraanayaan dad fara badanba waxay nooga dhintaan xanuunno yar waxaan ka qaban karano laakiin aqoon uma laha dhinaca kale waxaa jira hooyooyinka iminka waxaa soo badanaya in qalliinka marka lagu samaynayo hooyadu markay foosha soo gaadho in qalliin loo diyaariyo iyada oo waqtiyada qaar ka maarsami karsa qalliinkaasi ayaa haddana dad fara badani dumarkan weliba u sheegaya waxyaabahan arkay baa ka mid tahay anuu cisbitaalka weyne hargeysa jooga waxyaabahan arkay aanu la yaabay waxaa ka mid ah gabadh baa aroor la soo dhigay xilli hore oo weliba malaha 7 subaxnimo ah siday u foolanaysay ayaa waxay ku soo gaadhay maqribkii kadibna dumarkii ku xeernaa waliba dumar baa u imaado ehelka ah waxay ku lahaayeen waxaa ka mid ah waa la foolshaayo foolo bal u fiirso markaad ku tiraahdo foolo ay foolato heblaayasan ahaan jirtay foolo adiguna fooshiisay u foolanaysay ay ku lahaayeen qalliin ha gelin laysma qali karo qofku waxay moodaan haddii tiyaatarka qalliinka la geeyaba inuu qofka bilaadanka dhimanayo uuna ka soo noqonayn waxaan u soo gaadhnay 6 maqribnimo iyadoo xaaladeedu ay nolol iyo geeri u dhaxayso isla waqti xaadirkii baan u diyaarnay tiyaatarka qalliinka aanu gelinay waxaan arkay baan kuu sheegayaa gabadhaasi maalintaa waxaan ku arkay qalliinkan imkaan samaynano qalliinkii ugu horreeyey waxaa lagu sameeyey isla sanad ka hor ilmaha yar imika ku jira imsaa u dhexeeyey 9 bilood ee caloosha ku jirtay soo maa kadibna waxaan ku idhi qalliinka goorma lagu sameeyey waxay tiri sanad ka hor baa qalliinka lagu sameeyey imisaa u dhexeeya waa 9 bilood kale ku jiray bal meeshii oo cusub oo nabarku cusub yahay qalliin labaad ma ku samayn kartaa waxaan u sheegay markaa qalliinkii markaan bilaabanaa qadarka ilaahay baa haya dhimashadii geeridii noloshuna waa xagga ilaahay bay ka imanaysaa annagu waan dadaalanaa waan samaynaynaa inta karaankeega adiguna ducaysa waan ku idhi markaan qalliinka bilaabanaa isla daqiiqadii markaan qalliinkii samaynay aan jeexnay isla markaan makaankii gaadhnayba dhiig madow baa saa uga soo booday taas waxay kuu caddaynaysaa inuu makaankii already dilaacay waxaa ku dhacay uterine rupture waxa la yidhaahdo kadibna taana waxaa sababay dumarkii u imanayay ee ku xeernaa ayaa waxay ku lahayn waa la fooshay foolo waa wax simbala waa 15 daqiiqo qaadanaysaa markaa hooyooyinka waxaan u sheegayaa in markaad u tagtaan umulaha haddii xaaladdu adag tahay inaad kula talisaan waxay dhakhaatiirtu kula talay inay qaataan taas waa qodob weeyaan qodobka kale inii sheegaya waxa weeyaan xanuunka qofku markuu u imanayo weliba hooyadu u imanayso waxay timaadaa xilli dambe oo waxba laga qaban waayey qof kasta wuxuu fadhiyaa guriga maalinta aan last stage-ka qofku soo gaadho ayuunbaa la yidhaahdaa qalliinka ayuunbaa la yidhahdaa xanuunkaagii waxba lagama qaban karayo waxaan igula talin lahaa oon hooyooyinka kula talin lahaa inaad xilli hore timaadaan xarumaha caafimaad ood baadhitaan samaysataan weliba waxaad ogsoonaataan caalamka kale ee maanta horumaree horumarka sheeganaya qof kasta wuxuu leeyahay dhakhtar u gaara innaga Soomaaliland dhakhaatiir baan haysanaa ma neersi nagu filan baan haysanaa caasimadii oo keliya dhakhaatiir iyo neersi ku filan ma haysano iska daa gobolada hooyooyinku waxay nooga dhintaan waxa la yidhaahdo umal aroorka ama wax loo yaqaano postpartum hemorrhage dhiigbax baa ku dhaca hooyada dhiigbaxaas wuxuu ku dhacaa xilliyada ay ka imanayso meelaha miyada ah ee magaalooyinka ka baxsan ee aan lahayn adeeg caafimaad ku filan maalmaha ka mid ah waxaan la kulmay ilmo yar oo naqan oo imika dhashay oo ay ku dhacday xanuunka la yidhaahdo xiiq dheerta soomaalida taqaanaan ilmaha yar waxa lagu siday anaa argagaxay magaalada koonaheeda anaga oo hawlo shaqo u tagnay ayaa ilmo yar oo lagu sido gaari qoraqoro oo seerafa oo naqasku ku dhigsan yahay ayaa waxay markayna arkeen aan xidhanahay dareyskii caddaayay dhakhaatiirta ayaa waxaan ugu yidhahdeen balkaale ka yarnoo eega kii yaraaban saa u eegay waxaan arkay inuu naqasku ku dhigsan yahay meesha laga keenayna xarun caafimaad kuma taalo waxaan ku idhi halkan waxba kagama qaban karo ee hore ula gaadha anaa la hadlaya baan ku idhi dhakhtarkii mahdi kaasaa oxygen laga xidhaya bal xaaladdu halkay mar soo fiirso markaa hooyooyinka waxaan kula talin lahaa oan u soo jeedin lahaa inaad xilliyo hore caafimaadkiina aad ka war haysaan ka umulaha aad ka war haysaan ciyaalka yare dhalan doonaa si ciyaal caafimaad ay noogu soo baxaan aad ka war haysaan maan aad inugula talin lahaa hooyada caafimaadkeeda waxaa ku xidhan xilliyaday uurka soo gaadho 3 xaaladood way martaa bisha 1 ilaa bisha 4 waxa loo yaqaanaa first trimester 4 ilaa 7 waa second trimester bay ku jirtaa
muxuu ahaa 7 ilaa 9aadna third trimester waxa la yiraahdo ku jirta hooyadu maxay u baahan tahay waxay u baahan tahay ironteeda inay kor u soo qaado waxay u baahan tahay maadada folic acid la yiraahdo laftigeeda oo ilmaha yar bilaa xangulo ku dhalanaya haddii hooyadu qaadan weydo talaalka TT-ga la yiraahdo hooyadu u baahan tahay xarunta caafimaad iyo xanaanooyinka hooyooyinku ma tagaan inta badan oo xaqiiqo hooyo kasta waxay ka odhanaysaa ilaahay baan tala saaranayaa gurigaan joogayaa waxa laga yaabaa in xaaladdu ku adkaato taana way niigu sheegayaa way niga waaninayaa waxayna leeyahay xilligaad uurka ay hooyadu qaado waxaa loo baahan yahay in ay xarun caafimaad ay la xidhiidha inta 9 bilood ka dhamaysanayso si xaaladda ilmaha loola socdo maalmaha ka mid ah waxaa la kulmay hooyo sida ilmaha ay sida caloosheeda haddaad arki lahayd waxaad moodaa inay caloosha sido dhowr ciyaala hooyadaas waxaa ku dhacay labadeeda lugood waxay noqdeen tifka soo ma taqaanaan way ka dhuubnaadeen gacmaheedu tifka way ka dhuubnaadeen caloosheeda culayska sidana you can't image maskaxaada ma soo geli karto ilmo yar oo naqan bay sidataa markay noo timid waxaan saaranay computerka uur ku jirta ee ultrasoundka la yiraahdo waxaan ku idhi maxaa kugu dhacay aad u qaadan weyd markaan jirkeeda arkay waxa ka dhamaaday biyaha ilmaha yar ku wareegsan ayaa ka dhamaaday ilmihii yar wuxuu sameeynaa gidaarkiiba ku dhagayaa hadduu gidaarkii ku dhagana hooyada iyo ilmaha yarba waxa ku dhaca waxa la yiraahdo respiratory distress syndrome waa xanuun naqaska ku dhajinaya inay hooyada iyo ilmuhuba umul aroor u dhintaan ayay keensanaysaa waxaan kula taliyaan u sheegay inay xarun caafimaad degdeg u tagto isla markaana cuntooyin nafaqo la qaadato waxay iigu jawaabtay waxyaabo aan la yaabay waxaan ku idhi maxaad u qaadan weyday cunto nafaqo leh waxay igu tiri cunto nafaqo leh waxaan u qaadan waayey cidna siisana ma haysano odaygiina wuxuu u shaqo tegay bay igu tiri miy qof magaalo shaqo tegay ma jirto sooma odaygiina waxay tiri wuxuu u shaqo tegay miy kadibna waxaan ku idhi markaa wax cuntaan ma haysataan may bay tiri su'aal kale waan weydiin kari waayey waayo hooyadan xaaladdeedaan arkayaa cunto nafaqo la qaado man odhan kara iyadoon waxba haysan waxaan kula talinay buskud yaraan gacanta ku haynay baan siinay ilmahii yar ay wadatay waxaan ku idhi markaa wixii aan kuu qaban karano annagaa kuu qabanano kuu dirana waan kula cisbitaalka markaa hooyooyin fara badan baa dhibaataysan cisbitaalka gudihiisa waxaan ku arkay hooyooyin intii dawooyinkii ka go'een hadli kari la oo intii qof u tagaan ku odhan kari la dawadaas iga go'dee ha la iibiyo markaan waarkii soo maray aroortii aan is idhaahdaa xaaladdeeda eeg waxaan ku dhahaa dawadaadii ka warran waxay ku tiraa dawada way ga dhammaatay waxaan ku dhahdaa maxaad u soo iibsan weyday waxay tiraa waxaan ku soo iibsado ayaan waayey annaga iyaga shaqaale joognaa intaan isku tagno wax yar iska ururino ayaanu u soo iibinaa dawada markay ka dhammaato hooyooyin fara badan baan hadli karayn hooyooyin fara badan baan waxba sheegan karahayn marka waxaan talin lahaa waan soo jeedin lahaa in dadkaana laga warhayo waxaan soo jeedin lahaa inay xarunta caafimaad ee ugu dhow ay hooyooyinka la xidhiidhaan waxaan kula talin lahaa inay hooyooyinka caafimaadkooda ka warhayaan waxaan kula talin lahaa sidoo kale inay biyaha badsadaan waayo biyuhu waxay ka saareen dhiigga dhexdeeda wax alaale wixii bakteeriya ah iyo fayrusa iyo microorganism oo dhan waxa ka adag biyaha dadkeenu waxyaabahay aadka u diidaan waxaa ka mid ah dawooyinka la qaadanayo dhakhaatiirteennuna maanta waxay sameeyaan qof baa xanuunsanaya infection baa ku dhacaya waxay u soo qorayaan 30 midho amoxicillin amba 30 midho ampicillin kadibna qofka waxa ku filan inaad 3 cisho oo kaliya intaad u qorto dawo yar kooban aad ku tiraahdo dawada yar soo eeg waayo medicine-ka waxa la yiraahdaa amba caafimaadku waxa weeyaan 2+2 maaha 2+2 waa maxay waa 4 wax saasi maaha xanuunkaaga markaan ku baadhayo ma garan karay xaqiiqada ku jirta inuu yahay xanuunkii loogu talagalay in kale dawada waan ku siinayaa laakiin aan kuu badiyo maaha haddana wixii ganacsi ka dayo oo aan idhaahdo dawada qofkan iskaga qoroon macnay kuma samaynayso waa inaan dawada tijaabiyaa inay wax kuu tartay iyo inaan waxba kuu tarin marka waxaan kula talin lahaa dhakhaatiirta laftigoodana inay u naxariistaan hooyada cidda jilicsan leh weligii xarunta anugu aan leeyahay caafimaadin gaarka u leeyahay hooyooyinka igu imaadaa hadday igu idhaahdaan ma haysano waxaasi anaa dawada free ku siiya bilaash baan ku siiya taasi waxay caddaynaysaa qofka bilaadanka uumaan soo shaqo teg waxaan ugu talagalay inaan hooyada ku caawiyo hadday tiraa hooyo intaasan awoodi karayaana waxaan ku dhahdaa waa caadiya bixi hadday tiraahdo ma awoodi karayo waxaan ku dhahdaa hooyo iska daa anaa bixinaye taas macnihiisu waxa weeyaan qofka inaad u naxariisato hooyada inaad ka warhayso hooyada in loo hiiliyo qodobka ugu dambeeyaan doonaya inaan kusoo gabagabeeyo waxa weeyaan hooyooyinku waxay u baahan yihiin in aad loo ilaaliyo annagu dhakhaatiir baan nahay siyaasiyiin ma nihin muxuu ahaa xisbiyo kuma jirno dadkaan u adeegnaa askartu hadday la dagaalamaan cadow la arkayo annagu waxaan la dagaalanaa cadow aan la arkahayn oo qofka weerar ku soo qaaday oo xanuun ku keena marka annagu inta badan meelahaasina dadka kama hadallo laakiin mar kasta waxaan dhiirigelinayaa
waan markasta inii sheegayaa marka la soo gaadho caafimaadku waa qodobka ugu muhiimsan ee nolosha bini'aadanka ah waxaan igula talin lahaa hooyooyinka lagaga hadlayo social media because qof kasta u daawadaa soo maa hooyooyinkii maanta lagala hadlayay doodaha sodohda maxaa keenay in sodoh iyo hooyo qadarinta ay leedahay diintu ay 3 jeer siisay muxuu ahaa ahamiyadda in lagaga hadlo tiifiyada maxaa keenay anagu kama jawaabi karno ma odhan karno maxaad waxa u samaysteen laakiin waxa ka habboonaa hadday dood keenayaan laftigeeda inay idhaahdaan guriga iyo reerka maxaa dumin karaa maxaana dhisi karaa waa qodob meesha yaalla laakiin inta hooyadii la soo qaato in la idhaahdo hooyada ka hadla heblaayaa duminayse waxaad ogsoonaataan ilaahay qadarkiisu guriga ku dhismaa ilaahay qadarkiisuna uu ku dumaa hooyadu sabab maaha hooyadu sabab maaha hooyadu sabab maaha waynu ku celinaa mar labaad iyo mar saddexaad hooyadu sabab maaha hooyadu hiil bay u baahan tahay hooyadu waxay u baahan tahay in loo dabacsanaado hooyadu waxay u baahan tahay wanaag fara badan aad baad u mahadsan tihiin waqtigaa faraha badan le aad joogteen iyo sida fiican aad u dhegaysanaysaanba waxaa intaa iyo in ka badanna maalmaha dambe lasoo qabanqaabiyana waynu kasoo qayb geli doonaa annaguna doorka nagaga aadan dhakhaatiir ahaan oo ka qaadan doonaa dhammaantiin aad baynu ugu mahad celinayaa aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad u mahadsan yahay doctor axmed ismaaciil waanada dheer uuna siiyey dhanka hooyada iyo caafimaadka waxaan mar kale mahad celinaynaa xarunta dhaqanka ee hargeysa oo barnaamijkan quruxda badan qaybteeda lixaad kale ka qaadatay oo goobtan qurux badan inoo soo qabanqaabisay waxaan ku noqon doonaa ustaad anoo joogna gabagabadii barnaamijkeena jecelna inaan soo koobno maadaama hooyooyin fara badan oo meelo fara kala duwan oo magaalada inooga yimaadeen si ay hore ugu hoydaan carruurahoogiina ay u gaadhaan waxaan jeclaan lahaa dardaaranka ugu dambeeya ee shacabka ku daawanaya iyo inta goobta kugula sugan aad siin lahayd بسم الله الرحمن الرحيم horta runtii haddii laga sheekeeyo dhibaatooyinka hooyooyinka haysta markaan de somaliland ka sheekeynayno wax badan bay noo soo baxaya hadday faqri noqoto hadday caafimaad noqoto hadday waxbarasho noqoto hadday daryeel noqoto yacni hadday noqoto ninka lafdigiisu in badan oo ka mid ah ragga dee qaar badan oo waxaa jira runtii mas-uuliyaddii loo baahnaa aan ka soo bixin oo sidii la rabay runtii aan ula dhaqmin hooyooyinkood yacni dhibaatooyin badan baa runtii jira marka xaqiiqada loo daadego laakiin runtii anu waxaan qabaa uun waxaasoo dhan waxa xal u ah dariiqa islaamka uu dhigay ee ah in hooyada qaabka loola dhaqmaayo zawjku sida xaaskiisa ula dhaqmaayo gabadhu siday hooyada iyo ninkeeda ula dhaqmayso dariiqaa uu islaamku dhigay ee qolo kasta xaqeedii uu siiyey iyo waajibaadkeenadu uu sheegay dariiqaasoo la raaco ayuumaa runtii muxuu ahaay guriguna ku badbaadayaa carruurtuna ku badbaadaysaa reerkuna reer ku noqonayaa dadkuna runtii ay ku noqonayaan dad wanaagsan oo soo saara runtii dadkii dalkan wax u qaban lahaa ee ummadda bedeli lahaa intaasaan kusoo koobaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baad mahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa barnaamijkan inuu xitaa gobollada kale ee somaliland uu gaadho waxaan arkayaa siday dad fara badan ay barnaamijka u dhiirigelinayaan oo ay leeyihiin barnaamijkan inuu hargeysa ku koobnaanine hadday suurtagal tahay gobollada kale ee somalilandna in la gaadhsiiyo doctorka ayaan kelmadda u dambeysaan siin doonaa doctor waan kaaga mahad celinaa sidayd aad ula dardaarantay hooyooyin fara badan iyo xaaladihii kala duwanaa ee kasoo sheekaystay iyo weliba waan kaaga mahad celinaa sidaad u garab siisay hooyooyin fara badan oo carabowday qof kasta hooyo garab siiyaana dhammaanteen aad baan ugu farxaynaa oo kaalin bannaaneed ayuu buuxiyey doctor anagoo aad kaaga mahad celinaa kaalintaa bannaan ee aad buuxisay waxaan jeclaanahay dardaarankaga ugu dambeeya si barnaamijkeena aynu qaybihiisii kale aan usii gudagalno inaad kelmaddaada u dambaysatay way aad baad mahadsan tahay hooyooyinka aad baan u jecelahay hooyana way soo korisay aad baan u jecelahay markasta waan qiimeeyaa waana inaan hore niigu sheego oo marka ii timaado waxaan ku idhahdaa hooyo weligay kuma odhan heblaayey taasina wax qabta maaha wax qabanaya maaha inaan ku idhaahdo hooyo heblaayo oo qofka biishinka markuu ku yimaado wuxuu ku odhanayaa waxaasaan u baahanahay anna waxaan ku idhahdaa hooyo maxaad u baahan tahay soo dhowow soo fadhiiso wax allaala waxaan ka caawin kara waan ka caawinay dardaarankayga ugu dambeeya waxa weeyaan inagoo mahadsan dardaaranka ugu dambeeya inii sheegay waxa weeyaan hooyoy ciddaad ku tabcasa waa ubad ciddaad soo koraysa waa ubadka ha laga warhayo ubad fara badan baa xanuuno yaroo aan waxba hayn nooga dhinta waxaan igula talin lahaa inaad biyo muxuu ahaa aad cabtaan biyaha badsataan oo qodob weeyaan weliba biyaha aad cabaysaan ha ahaadaan biyo nadiifa carruurta yar marka ay doonayaan inay cunaan ha loo falaxalo waayo xanuuno yaroo waxa dhasha
gooriyaan yaroo cayayaan yaroo caloosha ku dhashaa jira oo amiibiya gaardilaambiya la yidhaahdo ilmihii yara waxaad maqlaysaa shuun baa igaga dhacay matag buu yeeshay saruu noqday intaa waxaad kaga hortegi kartaa inaad biyahana ka karkariso cuntada weelkaad ku siisana nadiif ka dhigto hooyooyinkuna ay inta badan ay ku dadaalaan nadaafadda guud oo carruurta loo maydho iyaga laftigooda naftooda ay ilaaliyaan waxaa kaloo aad u sii muhiima rag iyo dumarku isku mid maaha xanuunada dhicitaankooda dumar fara badan baa xanada waxaa ku dhacaa caada khalkhalka oo kale wuu jiraa soo ma marka waxaa jira in caadoo kale khalkhasho taana waxaa lagu sixi karaa dawooyin la isticmaalana way jiraan hooyooyinku waxyaabay ka xishoodaan bay nii sheegayaan xarunta caafimaad bay kugu imanayaan gabadhu kuma odhan karaso dhibaatadan ay igu dhacday qaarkood waxay ii yimaadaan iyagoo odhanaya heblaayo oon wax isku nahay ayaa waxaan ku dhacday ana heblaayadii wax ku dhaceen maan ku dhacday iyada ii keen ayay dhinac kale haddana uga wareegaan waxaan idin odhan lahaa inagula talin lahaa inaynad ka xishoon dhakhtarku waa cidda keliya ee la doonayo inay caafimaadkaaga la socdaan marka waxaan igula talin lahaa inaad ka war haysaan xarumaha caafimaad tagtaan biyo wanaagsan cabtaan caafimaadka guud la ilaaliyo hooyadu marka ay foosha soo gaadho taladay dhakhaatiirtu siiyaan biliisa ka hor imanina haddii kale waxay sababaysaa si gabadhii aan iga sheekeyn ku leeyahay makaankii baa dilaacay haddii dilaacana hooyada ilmaha yari khatar waxay ugu jiraan inay isku dhintaan marka waxaan igula talin lahaa inaad taana ka war haysaan xilliga uurka la soo gaadhana aad qaadataan muxuu ahaa tallaalada iyo dawooyinkan kale ee saacidaya ilmaha iyo hooyada hooyooyin fara badan oo uur la oo dawaqaya ad arkasta wareeraya waxa ku filan oo keliya inay sharoobo yaroo ayroona qaadato oo dhiiggeeda kor u soo qaado ay HB-geeda ka war hayso aad iyo aad baan waxaan igula talin lahaa in caafimaadka hooyada lagu dadaalo qof kasta oo dhalinyaro halkan fadhiyaana inuu hooyadii ku dadaalo hooyo kastoo Soomaaliyeed oo dhibaataysana oo xilliga dhibaatada ku jirta caawiyo anigu wasaanu caawinayo idinkuna u caawiya hooyooyinka hala jeclaado hooyooyinku waa laf dhabarta nolosha bilaadanka aad waad mahadsantiin aad iyo aad buu mahadsan yahay barnaamijka qaybihiisa kale in geli doonaa markaa waxaan fasaxi doonaa al-ustaad mubaarak aar iyo weliba doctor axmed ismaaciil qaybaha kale barnaamijka markaa gudageli doonaa aad baad mahadsantiin waan iga mahad celinayaa miyangama hawaysta habeenkii la'aanta aan hore u seexdaa haddii aanad ila hadal hoyo aan adigu odhan hurdamiyay qabataa hooyoy hurdamiyay qabataa sow naftaad horaadkiyo haneed ka siisee habtay kuma tabayso araggaagu hooyo ani ima haraatiro sow naftaad horaadkiyo haneed ka siisee habtay kuma tabayso araggaagu hooyo ani ima haraatiro waxaad tahay hubaashii hooyo hagahayga noloshii hooyo ifka hiba ku noolow aakhirana hadhaciyo hooyo jannadii ku hoyo oo hano helo kitaabkii